Assalaamu calaykum. WhatsApp. Haddaad haysato mobile, waxaan qiyaasayaa inaad isticmaasho WhatsApp. WhatsApp haddii aadan horay u aqoonin WhatsApp waa mid ka mid ah applicationada ugu fiican ee xagga wicista ama la xiriiridda familkaaga, asxaabtaada iyo dadka kale ee dunida daafaheeda ku kala nool. Ma ogtahay in WhatsApp oo keliya lagu gatay sanadkii 2014 $19 bilyan oo dollar, waxaana ku gatay milkiilaha Facebook ee Mark Zuckerberg isagoo u fiirsanaya kana taxadaraya lana kaashanaya caqligiisa. Waxa uu ku gatay $19 bilyan oo dollar, taasoo argagax gelisay shirkadaha kale ee caalamka ku nool iyo dadka kale ee ganacsatada caalamka oo dhan markii ay arkeen in application yar oo aan dhammayn 30 MB lagu gato $19 bilyan oo dollar, kaasoo $19 bilyan oo dollar u dhiganta in lagu gato qaarad dhan amase waddan dhan. Ma ogtahay in WhatsApp uu aasaasay nin Ukraine qaxooti ah oo ka soo haajiray Ukraine qaab qaxooti ah, magaciisana la yiraahdo Jam Koum. Ninkan hortiina ka muuqda magaciisu waa Jam Koum. Wuxuu dalka Mareykanka yimid sanadii 1992. Waa muwaadin Ukraine ah, waxauna qaab dalka ku soo galay qaab qaxooti ah isaga iyo hooyadii. Markaasi da'diisu waxay ahayd 16 sano. Sababaha ugu weyn ee uga soo tageen dalka Ukraine wuxuu ahaa markaasi dalka Ukraine waxaa ka jiray mudaharaadyo, qas, rabsho iyo waxyaalo aad iyo aad u adag. Taasna sababteeda waxay ahayd Ukraine waxay ka mid ahayd dowladihii Midowgii Sofiyeedka ayaa wax walba fuuqsaday, cagtana marshay. Xitaa dadkii waddanka u dhashay waxay ku qasbanaadeen inay waddankooda iskaga tagaan. Waxa uu soo haajiray dalkaasi iyo Mareykanka ayagoo u noolaayeen qaab qaxooti ahaan ah. Qaxooti markaan ku leeyahay lama siin jirin wax lacag ah, balse xoogaa yar oo macaawina oo bishii la baxsho ayay ku tiirsanaa jireen oo xukuumadda Mareykanku ay bixiso. Balse hooyadii taas dhagama aysan u dhigin, maxaa yeelay haddii ay kaliya ku tashtaan macaawinadaas ee xukuumaddu ay bixiso, waxaa hoos u dhacaya nolol maalmeedkoodii. Iyadoo taa ka taxadaraysa, waxay isku dayday inay ka shaqaysato guryaha dadka kale qaab shaqaale ahaan ah, sidaan annagaba u naqaano shaqaale ahaan ayaad u shaqaynaysay, halka wiilkeedii yaraa Jam Koum 16 jirkeediina uu waddooyinka uga shaqaynayay qaab nadiifinta qashinka. Jam Koum waxa uu aad iyo aad u jeclaa barashada kombiyuutarka, programintiisa iyo habka loo isticmaalo. Waxayna ahayd bartamadii 90-maadkii. Waa markii ay shirkadaha caanka ah ee hadda aan naqaano oo adduunkaba aan u naqaano, adduun ahaan aan u naqaano, ay soo caanbaxeen. Bartamihii 90-maadkii waa markii ay internetka isticmaalidiisu aad iyo aad u kacsanayd. Jam Koum waxa uu xiise weyn u qabay isticmaalidda iyo barashada kombiyuutaradaas, balse ma uusan awoodin because waxa uu ahaa qaxooti Ukraine ah. Xitaa ma uusan awoodin buugaag cusub uu soo gato si uu la socdo cashirka kombiyuutarka, balse waxa uu samayn jiray maktabadda ayuu aadi jiray si uu uga helo ama uu dib u muraajacaysto buugaagta la nacay ee maktabadda amase hore loo akhristo. Jam Koum markii uu ahaa 18 jir waxaa dhintay labadiisii waalid, halkaas oo uu Jam Koum fashil noqday, uusanna awoodin wax. Balse saaxiibkiisii la dhihi jiray Brian Acton ayaa garab qabtay, lana istaagay wax qarashaad ah uu ku baxsho amase uu ku galo maktabadda amase xitaa uu ku raadsado nolol maalmeedkiisa. Balse saaxiibkiisii Brian Acton ayaa garab qabtay, gurigiisiina geeyey, caawiyeyna, guri iyo gabaadna siiyey si uu ula noolaado. Waxaan hubaa haddii aad haysato saaxiib aad iyo aad u fiican ama saaxiib dhab ah, ha ka foqin weligaa ha ka foqin, maxaa yeelay saaxiibkaasi wuxuu kugu ridi doonaa waddo aadan weligaa aadan arkin, amase wuxuu ku hogaamin doonaa waddadii mustaqbalka. Ilaan horaa loo yiri badanaa walaalaysan dhalin hooyada. Okay, haddaan u soo jeesano mawduuceena, Jam Koum labadaani waxay iskagala shaqo bilaabeen. Jam Koum iyo Brian Acton waxay iskaga shaqo bilaabeen shirkadda Yahoo
taas oo ay ka shaqaynayeen muddo dhan 6 sano laakiin waxay iskaga tageen sanadii 2007 arrimo jira awgeed muddo 6 sano ayay u shaqaynayeen waxa ay aadeen markaasi Amerikada Koonfureed si ay fikrad cusub ama afkaar cusub ugu soo biirto 2007 2008 ilaa 2009 wax shaqo ah maysan qabanin wax shaqo ah ay hayeen ma jirto balse waxa ay isku dayeen in ay codsi u dirsadaan codsi shaqo u dirsadaan shirkadda Facebook maadaama ay leeyihiin khibrad teknoolojiyadeed ayna ka soo shaqeeyeen shirkadda Yahoo balse Facebook way ka diiday codsigiina way ku celisay balse ma aysan ogeyn Jam Koum iyo Brian Acton wax ay sameyn doonaan in Facebookgaas ceyriyay uu ku soo ceshan doono yana ka hor dhicine Brian Acton waxa maalin ku soo dhacday isaga oo soo gatay mobile iPad ah waxa ku soo dhacday fikradda sameynta adeega WhatsApp markaasi uu soo bandhigay saaxiibkiisii Brian Acton si uu ugala shaqeeyo waxana ugala qabto hirgelinta fikraddan waxa ay fikraddii uu la tageen nin Ruush ah markaas oo website-yada uga shaqeysan jiray si xur ah markii ay dhameystireen sameynta application-kaasi waxa ay si macnaha tusaale ahaan tijaabo ahaan uga soo dejiyeen saaxiibadood mobilkooda ama mobilada saaxiibadood laakiin ma uusan helin xodaa taageero aad u fiican iyo qancin badan 2011 ayaa waxa lagu qiyaasaa 50 qof ayaa soo degsatay taas oo sababta ugu weyn waxay ahayd WhatsApp-ku ma uusan lahayn macnaha xayeysiimaha qaar WhatsApp-ku waxa uu leeyahay waad wacanaysaa oo kaliya connectiska markaad qofka ku soo daratid qofkii aad rabtay ay wacaysaa qofkii aad rabtidna message waa u diri kartaa laakiin halka email oo kale uu maanta leeyahay xayeysiin aad iyo aad u badan xitaa mararka qaar waxa laga yaabaa inuu ka qasa qofkii markaasi aad la hadlaysay 2010 waxa lagu qiyaasaa dadkii isticmaalayeen adeega WhatsApp 10 milyan oo qof halka 2014 ay gaareen 500 oo milyan oo qof isla sanadkaasna waxa Facebook oo markaasi caalamka si darandooriya ugu socday gatay wuxuuna ku gatay qiimo dhan 19 bilyan oo dollar waa 19 bilyan oo dollar waxaana ku gatay milkiilaha Facebook ee Mark Zuckerberg Jam Koum iyo Brian Acton waxay taasi u hogaamisay wadadii bilyaneernimada haddaba maantadan aan joogno WhatsApp-ka waxa isticmaasho in ka badan 5 bilyan oo qof xitaa Facebook ma isticmaasho 5 bilyan oo qof waad u jeedaa horumarka ay gaareen Brian Acton iyo Jam Koum fadlan muuqaalka haddii aad ka heshay like saar sidoo kalena haddii aadan nagu soo biir oo taaba calaamadda subscribe-ka ay ku qoran tahay gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaalada xiga isma dhaafne muuqaalka xiga fadlan qaybta commentiga noogu reeb shirkadda ama se waxyaalaha aad jeceshahay sidaan oo kale inaan uga faaloono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa inoo muuqaalka xiga